xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo diriir ay ku dhaxmartay deegaano hoos yimaada gobolka Sool. warkaasi waxay noo soo diray Xamse Dabaare. Ibraahim Ducaale Boos xogayaha amniga ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha diriirta colaadeed ku dhaxmartay gobolka Sool gaar ahaan Lafaweyne isagoo xogayuhu ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda. waxaan ka dirayaa baaq nabadeed oo ku wajahan beelaha walaalaha ee diriirta ku dhaxmartay gobolka Sool gaar ahaan Lafaweyne area markaas sida la sheegay dhimasho iyo dhaawacba sababay dagaalkaas oo dhimasho iyo dhaawac sababay xisbi ahaan anigoo xogayaha xisbiga amniga wadani lama xamarka taasi horta ugu diranayo iyo baaq nabadeed baa dadka walaalaha diriirta ku dhaxmartay gobolka walaalayaal colaad wiil baa ku dhintay wiilka ma dhasho walaalayaal hal noorto marka hore nabadda qaato qoriga dhiga aqliguna ha shaqeeyo nabadda qaata gaar ahaan waxaan taasi ugu sii diraynaa dadkii waxyeeloobay ee ku dhintay ehelkoodii iyo qaraabadoodii in hay sabir iyo iimaan ka siiyo intii dhaawactayna ilaahay u boogadhayo oo kurbadii kaarka maanta haya ilaahay ka jaro oo caafimaad ugu bedelo walaalayaal sidaan ogsoonahay colaaddu waxa ma karto faa'iido ma keento waxay keentaa heertaanyo iyo dad inta maanta qaar nool inaynu berita ku wadata ka daba geyno ayaan daro xisbi ahaan waxaanu ku baaqanaa iyo xogayaab waxaanu ku baaqaya xogaya ahaanba walaalayaal colaadda joojiya colaadda inaga dabiya ergooyinkii aad bay ku yimaadeen dadka caqliga u saliimka ah wadax dhaqameedkii salaadiintii intiiba way ka soo qayb gasho way maanta nabadeynta u guntan tahay walaalayaal qaata oo dadka u qabsooma geeya oo ku soo socotay nabadeynta oo salaadiin ah oo cuqaan leh inay gawaadhidoodina la dhacday oo maanta iyaba ay dhaawac yihiin iyagoo u gurbanaya gurbadka iyo colaadaha ka soo sooraatay walaalayaal waxaan leenahay qaata oo ergada u qabsooma inta ordasay ku dhaawactay maanta dhibta halka ka xumaa ay u soo oroday iyo dhaawaca iyo dhibashadaasi ka dabqatay annana intaasoo la wadaagana aanu leenahay walaalayaal nabadda qaata talabaad waxaan halkan ugu gudayaa waxaad moodaa in maanta roolkii dawladdu ka maqan yahay meeshii oo colaadahan soo noqnoqonaya ilaa imika 3 sannadood ee dawladda maanta jirtay madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo colaaduhu aad bay u badan yihiin beelaha iyo deegaanada aad bay ugu soo noqnoqonaysaa koow ma aha laba ma aha saddex ma aha inta imika bilaha gudaheeda aynu ognahay inta shaqaaqo ee dhacday ee dhibasho iyo dhaawacba keentay waad garanaysaan wayna la wasocnaa wayna wada ognahay nabadda maanta aynu ku waarnay maanta aynu ku fadhino Soomaaliland aynu ku fadhino waxa keenay shacabka isu tanaasul isu qabsoomid isu beerxaarasho iyo kala sabir been halka ku gaadhay waxa uu fariin u diray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland taasi oo uu sheegay inay soo noqnoqotay beelaha walaalaha ee diriirta colaadeed ku dhaxmaraysa Soomaaliland dhexdeeda taasi oo uu ugu baaqay haddii ay wax ka qaban weydo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland inay xilka ummadda u hayso ay iska casisho sidoo hadalka u dhigay walaalayaal haddii ummadda mas'uuliyaddeeda qaadi karay oo ummadda ayda kala jahan karayna xilka ummadda ku soo celiyo ummadda xilkeeda uga tanaasulo iska casila walaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga waxaan leenahay waa roolkaagii waa shaqadaadii maanta waynu ognahay inta meelood ay shaqaaqadan ka soo noqotay buu hoday ka dhacda maanta waa lagu hayaa gacanta lagu hayaa dad beelo walaalo saas oo kala dagaal ku dhaxmaray waxaynu ognahay tii ceelafooyna wali taaganoo baaqay ka soo saareen go'aamada ku saarnay bay yiraahdeen isla sikkiiba waxaynu arkaynaa iyadoo ka daba hadleen beelihii beela ka midihii iyana waxaanu leenahay waa isu tanaasula idinoo waad aragtaane cid kasta oo xageersay nabadda ka wanaagsan iyo wada noolaanshaha Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.